waxaan runtii maanta sharaf ii ah muddo sanada kadib inaan xilkii kusimaha agaasimaha guud ku wareejiyo agaasimaha cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo u igmaday inuu shaqada madaxtooyada sii daadihiyo xilligan adag. waxaan rabaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaan uga mahadceliyo kalsoonidii uu siiyey iyo sidoo runtii igu suurtageliyay inaan shacabkayga iyo dalkayga u khidmeeyo ugana khidmeeyo meel xasaasi ah. waxaan kaloo rabaa inaan runtii u abaal celiyo oon halkan ka xuso dhammaan intii ila shaqaysay intii aan madaxtooyada kusimaha ka ahaa. runtii meeshan in laga shaqeeyo ma aha wax sahlan, laakiin marka aada hesho garbo iyo taageero buuxda oo dhinac walba leh waxaad runtii qaban kartaa shaqo uusan qofna qaban karin. marka runtii waad ku mahadsan tihiin la taliyayaashii iyo agaasimo waaxeedyadii runtii muddadaas ila soo daadihiyay hawsha oo iiga hooseeyey oon isleeyahay qofku yacni saameynta ugu yar ama waxa ugu yar ku darsada meeshaad ahayd, maadaama shaqadu shaqo hoos ka dhisan oo daadegsan ay ahayd. intaan madaxtooyada joognay runtii wixii noo suuragalay iyo wixii naga qabiyoobay intaba halkan kuma soo koobi karo, laakiin runtii waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inay jireen isbedello la taaban karo oo runtii aad ku arki doontaan warbixinada hay-adaha kala duwan ee dowladdu ay ku qiimeeyaan xafiisyada kala duwan oo ugu horeeyo xafiiska hanti dhowrka guud oo runtii markaan nimid noo sheegay inay jiraan waxyaabo u baahan in la hagaajiyo. ilaa 4 qodob ay noo soo gudbiyeen. maantana waxaa ilaahay mahadiisa warbixintii iyo qiimeyntii u dambeysay in dhammaan waxyaabihii iyo xafiiskaas runtii ku tuhmaya xafiiska inay gaabis kaga jiraan in runtii dhammaan la wada daboolay. waxaan rabaa inaan kula dardaarmo walaalkay Cabdisiciid in uu runtii shaqada halkaas kasii wado, anigana aan u ballan qaadayo inaan ku garab istaagayo wixii caqabado ahaa iyo wixii fursado ahaa ee hor yaallay inaan kala sii shaqeeyo si hufan. Cabdisiciid ma aha qof banaanka ka yimid, waa qof madaxtooyada runtii saraakiisheeda ugu sarsareysa ka mid ahaa, xogogaalna uu ahaa waxyaabo fara badan. aniga asagana waxaan fursad u helaynaa insha allahu in xogogaalnimada madaxtooyada gudaheeda ah inaan runtii khibraddaasi uga faa'iideyno maxay ahayd xafiiskan iyo guud ahaan dowladda haddii eeba idmo. sidaa ogtihiin dhammaanteen mas-uuliyad baana wada saaran. mas-uuliyaddana waa ammaano ilaah iyo ammaano qaran weeye, especially meeshaan joogno. mas-uuliyad xileedka hadda oo madaxtooyada qaranka waa heer qaran weeye, waana la iskula xisaabtamaya xag alle iyo xeerarka iyo dhaqanka iyo dowladnimada xaggeedii. marka mas-uuliyaddaas adag waa ogahay oo ammaanada oo culayska badan waana ogtihiinoo qur-aankaaba lagu sheegay in dhulka iyo cirkaba ay diideen sida culammada ii sheegeen markii loo soo bandhigay. laakiin marxaladda lagu jiro awgeed dhabarkaan u ridanay mas-uuliyaddaas haba culays badnaatee gilgilashana ma nooga harayso oo waxay u baahan tahay inaan isu diyaarino oon qabanno si hufan oo karti leh inaan hawshaas u qabanno. ammaanada dhowristeeda iyo xilkasnimadeedana aan qaadanno una gudanno sidaas. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu kaalmeeyo. maanta xilwareejin unbay ahayd, isbarasho, shaqo dhammaan waa noo dambeysaa. haddase waxaan rabaa inaan mudnaan iyo sharaf iyo si walaaltinimo aan ugu mahad celiyo walaalkeen cabdinuur oo xilkan nooga horeeyey haddana wareejinooyo. runtii shaqo fiicana lasoo qabtay intuu muddada uu xilka hayay, wuuna ku ammaanan yahay, waana uga mahad celinaynaa shaqadaas siduu usoo daadahiyey. agaasime cabdinuur nagama foga,
wixii maaragtay dhib noqdana asagaa macnaha xogteedii iyo xalkeedii na siin doona. inteena kale waxaan leenahay waan isu dambaynaynaa. waxaa farxad iyo sharaf ii ah inaan idinkala soo qayb galo xafladan aan xilka ugu kala wareejinayno agaasimaha guud ee madaxtooyada cusub iyo kusimihii muddadii sanadka ahaa soo waday madaxtooyada. marka koowaad waxaan bogaadinayaa hawshii adkeyd uu cabdinuur uu kusoo qabtay hawshii kusimanimada oo runtii yani aan dhihi karna madaxtooyadii wuxuu ka dhigay hay-ad yani habaysan. waxa uu saxa ugu muhiimsan oo sida hadda ay shaqaalaha iyo agaasimayaasha ay ugu hambaleeyeen xuquuqda shaqaalaha. waxay leeyihiin dad ishormariyaa jiro ayagoo shaqadoodii wada haddana yani waxbarashta gareedkooda bedela. marka xuquuq ay ku yeelanayeen oo u saxay. dadkaas ilaa 60 qof ay gaarayeen. 60 qof yani say u badan yihiin. aadaan ugu farxsanahay dadkaas dad ka mid a inay fadhiyaan filayaa. uu ku mahadsan yahay cabdinuur sida uu waqtigaa adag uu uga soo dhalaalay waajibaadkii hay-addii ugu sarreysay dalka uuna u qurxiyey. waana maanta siduu ku fadhiyo idinka dhan aad ku faraxsan tihiin aad u aragtaan. sidoo kale walaalkay cabdisaciid agaasimaha guud u hambalyeynaayo waa cabdisaciid muuse cali. waa nin mas-uul oo akaademig ah, professor jaamacada aha. arrinkan dowladda iyo shaqadeedana aada u yaqaana. maktabka uu hadda ka shaqeynayana xafiiskana maktab aada u weyn oo taabanaya qaranka ayuu ahaa. ka horna uu dowladda uu ka shaqeynayay. maanta waan ku faraxsanahay inuu howsha maamulka madaxtooyada in loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka madaxweyne maxamed cabdullaahi ku mahadsan yahay inuu soo xoro nin noocan oo kale ah. annagana waxaan u ballan qaadaynaa inaan la shaqeyno. laakiin waa idinka waxay ku xiranta intiinaan hadda meesha fadhido la taliyayaasha madaxweynaha iyo agaasimayaasha iyo shaqaalaha ayaa guul gaarsiin kara. hawsha badan ayay ku dhacaysaa. mudane agaasima guud soo dhawow.